Fayrus mar iyo dhif soo baxa ayaa galaaftay wejigiisa kaas oo galaafan kara fankiisana. Khatar weyn ayaa soo wajahday fanaanka weyn ee Justin Bieber kadib markii uu la wadaagay taageerayaashiisa waxa cusub ee ku soo kordhay. Sidee wax u dhaceen? Ma sii wadi doonaa fankiisa mise wuu joojin doonaa? Muuqaalkeenan ayaan ku eegi doonaa. Fadlan subscribe saar channelkeena si aad ula socotid wixii cusub. heesaaga caanka ah ee Canada Justin Bieber ayaa shaaca ka qaaday dhawaan in dhakhaatiirtu ay ku sheegeen inuu qabo xanuun lagu magacaabo Ramsay-Hunt syndrome, taas oo keentay inuu wejigiisa naafo noqdo ayna ku qasabtay inuu joojiyo showyadiisa qaar si uu diiradda u saaro kasoo kabashada xanuunka. waxa uu ku sheegay muuqaal fiidiyoo ah uu soo dhigay bartiisa Instagram inuu qabo Ramsay-Hunt syndrome kaas oo saameeya dareemayaasha dhegta iyo wejiga. waxa uu xusay in ishiisa midig ayna libiqsan karin, isagoo intaa ku daray ma dhoola cadayn karo dhankayga wejiga, sankana ma dhaqaajin karo, wejigayga naafo ayuu noqday xaqiiq ahaantii. fanaankan oo 28 jir ah ayaa sheegay inuu jir ahaan awoodin inuu wax ka qabto sooyadiisa soo socda, laakiin waxa uu samaynayaa jimicsi wejiga ah waxaana la filayaa inuu ka soo kabsado. wejiga wuxuu ku soo noqon doonaa sidiisii hore, ayuu sheegay Justin Bieber. ma garanayo inta ay qaadan doonto. cudurkan ayaa ah mid dif iyo naadira. calaamadaha cudurkan waxaa ka mid ah finan ka soo baxa dhagaha ama agagaarka dhagaha, yacni gudaha dhagaha, iyo sidoo kale daciifnimada dhaqdhaqaaqa wejiga. caadiyan finan iyo burburka neefaha wejiga waxa ay soo baxaan isku mar, laakiin xaaladaha qaarkood mid ayaa laga yaabaa inuu ka horeeyo kan kale oo finanku ma soo bixi karaan mararka qaarkood. bukaanka qaba cudurkan ayaa sidoo kale la kulma dhaga xanuun, yacni maqal la'aan, dhibaatada inay isku qabtaan hal il oo yacni iskuma qaban karaan hal il ilaa ay isku qabtaan labadoodaba. dawakhaad ayaa sidoo kale ku dhacda qofka, dhadhanka ayaa ka luma qofka, afka oo qalloocma ayay sababtaa, iyo indhaha oo qofka aad u qalala. imika waxa uu ku jiraa dhakhtar oo waxa uu sameeyaa dhaqdhaqaajinta wejiga, sidoo kale waxa uu qaataa dawooyinka sida uu uga soo kabsado xanuunka. taageerayaashiisa ayaa waxay ku soo waaleen warqado badan oo ay ku cadaynayaan sida ay uga xun yihiin xaaladda cusub ee soo wajahday fanaanka. Justin Bieber ayaa soo shaacbaxay markii uu ahaa 13 jir, markaas uu galay kaalinta saddexaad barnaamij loogu tartamayay tijaabinta codadka wiilasha yaryar. intaas kadibna waxa uu noqday fanaan international ah oo caalamka oo dhan laga dhageysto. arrinta yaab kale ayaa ah 4 ka mid ah heesihiisa ayaa hal mar lagu arkay liiska 20 heesood oo ugu fiican adduunka sanadkii 2019.